nabiga calayhi salaatu wasalaam safar bay ahaayeen iyo asxaabtiisii markaasaa aad baa loo oomay 3 saxaabi ama 4 saxaabi uu nabigu diray wuxuu yidhi horay u socdo bal oo haddii dad idinka hor yimaado yacni naga hormaro ama haddaad biyo iyo wax aragtaan sida cali baa ka mid ahaa saxaabada hore marka waxaa ka hor timid qof dumar ahoo socoto riti bay wadataa 2 sibraaroo waaweyn oo biyaha ritiga u saaran iyadana dhexday ku fadhidaa markaasay joojiyeen bal waran hay inteed ka timid dee meel yacni fog ayaan biyo ka soo dhaansaday oo haddana waxaan u socdaa reerkaygii baan u socdaa biyaha aad ka soo dhaansatay ilaa intee noo jiraan waqti maalintan baa hadda la joogaa ilaa maanta ilaa caawa haddaad sii socotaan berri unbaad gaaraysaan bayde aad buuna ciidanku u oomaya markaas waxay yidhaahdeen rasuulkaan kuu geynayna inakeen markaas rasuul muxuu yahay rasuulkaas sheegaysaa waa maxay way soo wadeen markaasi ritigii bay garka soo qabteen oo way soo wadeen ciidankii bay ka hor keeneen ritigii baa la fariisiyey markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi gabadhii bay ka degdegtay halkaasay tagtay sibraarku wuxuu leeyahay dee naaso laga cabo baalka yacni waa weelkii oo yacni neefkii oo de haraggiisii la bixiyey oo meeshii lagu hayi ahaydna waxaa loogu talagalay in biyaha iyo laga shubo soo maa marka saasuu nabiga afkiisa u furay wuu ku tufay markaasuu yidhi ka cabba waa laga cabbay weelashii ay wateen oo dhan bay ka dhaansadeen ciidanku wuxuu wato weelaha laga buuxsaday oo la wada cabbay sibraarkii sidiisiibuu u buuxaa markaasaa loo xiray gabadhii sibraarkii biyihii waa iska intoodii ma dhaafin waxba kama nusqaamin gabadhii buu la hadlo wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyahaagii waxba kaamaana nusqaamin soo ma aragtid way buuxaan labadii sibraar waxba kaamaana nusqaamin maro weyn buu markaa nabiga halkaa ha lagu goglo wixii ciidanku haysteen oo raashin ahaa buu isugu soo dardara gabadhaas markaasaa timir badan iyo raashin badan iyo waxbaa loogu riday tanna qaadaa la yidhi sigii baa loo saaray way baxday ritigeedii bay dhaqday qoomkeedii bay u tagtoo waxay tidhi maanta waxaan la kulmay bay tidhi koonka caalamka qofkii ugu sixir badnaa baan maanta arkaysa ow kaana nebiyan bay tidhi kamaa yazcumuun ama nabi weeyey tidhi say sheegayeen hadda anuu nabi ma aqaanee nabi bay lahaayeen bay tidhi waxaan la yaabaan arkay marka qisadii bay uga warrantay gabadha ayadaheedii reerkoodii degmadii meesha deganayd oo dhan way islaameen baa la yidhaha oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka way laabteen duulaan bay u soo baxeen qoladii waagii ay biyaha ka cabbeen weye qoladan ha la nabadgelayaan la taabanin marka dhulkii kale ayuu markaa nabigu ku duulay gabadhii iyo reerkeedii oo dhanna way soo islaameen bibarakati ducaahi sala allahu calayhi wasalam mucjizaadkii nabigay ahaayeen